haddaad ogaanlay jacayl igu baahay haddaad ogaanlay cishqi igu beertay haddaad ogaanlay mabad baysaan naftayda bogtay sidan kugu baanay haddaad ogaanlay jacayl igu baahay haddaad ogaanlay cishqi igu beertay haddaad ogaanlay mabad baysaan naftayda bogtay عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير برارية بشبش يا عفمادنا تكو قادان عيد إذا يعني دين رجيننا وبرنامج قارو إذا كجا إيمانا يا مقالة جيجيجا يا حرون تدقان كسومالي دا وحلي كدوان عيد بدنا ويدتك وحوي أي فرحات كوضنا الوذين عذرك كوفيد 19 سامي دنيدنا عن كل نول نهاي sanadkan 2020 ayaa wuxuu keenay barnaamijyo badan oo dadka lagu maaweelin jiray maalmaha ciidaha ee farxadda ah inay sidii hore u qabsoomi waayaan si walba ay tahay si aan u raali galino bulshada na daawanayso ayaa waxaan ugu talagalnay iskuna taxalluujina iyadoo aad u dhib badan tahay inaan barnaamijkan jigjiga aan idinka keenno wax badan ma awoodno mid kamid ah asxaabta la jecel yahay ama fanaaniinta geyga Soomaaliyeed loogu jecel yahay mid kamid ah ayaan fursad u helnay waxaan jeclaan lahaa kuwa badan oo asxaabtiisa inay garba fadhiyaan laakiin cudurka ayaa ma yiri hal la kala fogaado gacmaha la dhaqdo sankana hal la duubto ama af saab hal la saarta ay leedahay sidaas ay tahay waxaan idin leenahay waxaan idin soo wadnaa barnaamij gaar ah oo aan markaasi كل فقرينو صاحب كان وحوي فنكا سلطان سرار جهاد وهو العنكا جيجا سوماليات هو الذي اللوجوش عليه هي حلية ضمبه فرصة أن يوضع يلني محيلي وحلاقي يعملها سنة عيدا عصب كون أفر بقول أفرتني يكون سنة عيد الفطر جنا العيدين لكن maybe كوفيد 19 أيا وحود جيجا إنه تشوجو عاو halkan ayuu nala fadhiyaa si aan u kala fogaanshaha u ilaalino anagoo badqabka bulshada xooga saarayna ayaa waxaanu suura gashay asxaab gaar ah oo aad u tira badnayn oo tobaneeya iyo dhowr ah inay nagala soo qayb gasho si xiisa ay noogu yeesho waxaan ayagana ku waninay iyagoo kali u imaanayay hoolkan aan ku qabanayno waxa weeye xafladda inay markay yimaadaanna ay kala fogaanshaha ilaaliyaan ay kala durkaan ilaahay ayaa badbaadin kara laakiin taxadarku waa muhiim inta aan kaga tago wacyigan ku aadan covid 19 iyo ciidan ciid al-fadriga oo aanu jigjiga aan isku dayeynay inaan idinka raali gelino inta aan awoodno maadaama dhulal badan oo dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin daafaha caalamka la fadhiyo maalmaha ciida guryaha oo wadamo badan ay soo rogeen bandow saddexda maalmood ee socodkiisa sawaxanku u badan yahay ee aadka loo ciideeyay jigjigana kama gadisna saaxiibkay suldaan ila soo dhaweeya suldaan seeraar guhad magaca markii la maqlo manaanays baa loo maleeyaa mise waa magaciisii qumana suldaannimada maxaa lagu saaray wad mahadsantahay walaalkay ciid mubarak baan ku leeyahay ciidan iyo ciido badan ilaahay nabad qab iyo bashbash anuu gaarsiiyo waxaan kula ciid mubarak leeyahay asxaabtayda khaaska ah iyadoo cudurro jiraan kali noogu imaaday haddana distancega noo ilaaliyay ayaan si khaas ugu mahadcelinay ciid mubarak aan leeyahay ummadda muslimiinta meel walba ay daafaha caalamka joogaan waxaan leeyahay ciid mubarak adiga familkaaga iyo qoyskaaga waxaan leeyahay ciid mubarak waan ka guddoonay anigana waxaan leeyahay dhammaan daawadayaasha taageerayaasha waxa weeye suldaan seeraar iyo guud ahaan dadka ku taxan Universal TV ba ciid wanaagsan ayaan idinka soo leenahay magaalada Jigjiga oo wayadan iska rooban waayahay suldaan barnaamijku wuxuu u badnaanayaa sidoo noqon doono heeso cusub kulli waa laga filayaa anna waan ka filayaa daawadayaasha iyo asxaabta hoolka nala joogtana way ka filayaan waxaan kale oo barnaamijku noqon doona isxog waraysi su'aalo yaryar oo aan aad u adkayn iyo waliba su'aalo ka iman doono oo fursad siin doono taageerayaashaada iyo asxaabtaada kala soo qayb gashay ee habeennimadkan qaarkood laga yaabo inay soo lugayeen maadaama bandow uu ka jira Jigjiga ugu horeyn suldaan hal su'aalo fudud jawaabteedan oo fududahay
saddex eray isku qeex haddaan ku dhihi lahaa oo hadda ka hor aad isku qeexin ama aad ku suldaan ahaan saddex jumlo ama saddex eray isku koob oo isku qeex haddaad tiraahdo saddexdaa maxay noqon lahayd sida haddaan su-aasha isku dayo oon saddex eray aniga isku qeexo furfurnaansho hambalnimo iyo qalbi wanaagsanaan waayahay su-aalihii koobkoobnaa ee degdega ayaan u gelaynaa maalmahan ramadaanta iyadoo lagu jiro intaana barnaamijkan qaban waxyaabihii aad ku mashquulsaneed maxaa ugu muhiimsanaa maalmahan haddii aan mashquulka aan guda galo intii wixii aan ku mashquulsanaa kow familka qoyskayga ah inaan ku mashquulo talabaad inaan bulshadayda wax aan micnihii aan la soo hor istaago oo heeso cusuba iyadana waan ku mashquulsanaa waayahay xaalad baa lagu jiraa iska bandow ah adduunkao dhan sideed ula tacaalaysaa waxaa weeye xaaladan maxaa qorshe ku ahaa oo cudurkan kaa kala daadiyey waxaa qorshe ii ahaa markii aan ka soo laabtay Yurub inaan tour UK ah oo ii diyaarsanaa aan baxo laakiin karoolahan iyo cudurkan baa saameyn ku yeeshay maadaama adduunkii uu kala xirxirmay saasaan u joogay mararka qaarkood marka ay fanaaniinta safar galayaan waxaan filayaa inay sii waxaystaan heeso ay ugu talagaleen meesha ay tegayaan inay ka qaadaan heesaas ma dib baad u dhigan iyo safaradaada dambe mise caawa iyo ciidda waxbaad noo haysaa oo daawadayaasha si ay kuraasta ugu fadhiyaan ma insha allah heesa dambe way iska iman doonaan laakiin kuwii aan diyaariyey caawan wadda ka qaadi doona insha allah hal heesa in la soo saaro intee maalmood bay average idinku qaadataa celcelis ahaan walaa ismaaciilow halka hees ee dadkanu intay 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo ay dhageystaan ay tuuraan ay nacaan dhib badan baa loo maraa abwaan baad u tegaysaa erayuu samaynayaa erayaad ka soo qaadaysaa laxan baad la raadinaysaa laxanaad fiican baad la raadin laxankii markaad soo saarto musiciankii baad dib u raadin musiciankii baa haddana music saari musiga markii la tumo haddana inaad xafiday noqon kadib la duubo audioga intaas qaadanaya videogiina uu ka sii daran yahay marka oo sii daba yaala waayahay haddaan u soo laabanno suldaan ahaan suldaankii hore aan tagno goorma ahayd markii ugu horreysay eed xasuusatid eed nooshahay xasuustaadii ugu fog goorma ahayd xasuustaydii goortaan xasuustay inaan qof nool aan ahay waxay ahayd goortii aan aqliyeystay uun aniga oo jooga goday waayahay caruurnimadaada aan dib ugu laabanno heesaha inta aadan bilaabin dhaqanka wuxuu ahaa inaad soo martid malcaamad oo qur-aan aad soo dhigatid fahankaaga suu ahaa suuraddii kuugu adkayd qur-aanka markaad baranaysay ugu yaraan hingaada marka aad soo baranaysay marka xagga qur-aanka u leexdo suuraddii igu adkeedeen dhihi karaa way igu adag tahay waxay ahayd tabaarak alladii biyadi waayahay macallimiinta macallinkii aada ugu cabsiga badneed ma xasuusataa dabcan dugsiyo kala duwan baad dhigatay intaad yarayd macallinkan ugu cabsi badnaa wuxuu ahaa macallinka dhanka maadiga haddii aan fiiriyo iskuulka inta badan liskuma garaaci jirin dugsigaad dhigan jirta dugsigii looxa qadka la riiqi jiray ulaha la dooni jiray ma aha dugsigu waxaa macallin ahaa walaalkay aniga walaalkayba qur-aanka ii dhigi jiray ulaha aan soo guro unbaa aniga laigu garaaci jiray taasay ahayd waayahay aan usoo imaanaa hadda jigjiga ayaad ku nooshahay inta badan oo fadhigaaga yahay jigjiga waxa aad ku jeceshahay ay gaar kugu tahay maxaad nooga sheegi kartaa jigjiga waxa aan ku jecelahay ee gaarka aniga ah familkii baa jooga salaantooda iyo booqashadooda asxaabtii baa joogta intaasaan ku jecelahay jigjiga ehelkii iyo asxaabtii iyo familkii baa jooga okay su'aalaha waxay iska noqon doonaan kuwa isku dhex qasan hadba jawaabta sida aad usoo dhufatid ayaan fiirin doonaa weli kuwii personalka ayaan ku jirnaa waayahay hobby waxyaaba aad jeceshahay ma jiraan waxa ugu jeceshahay hobbigaaga muxuu yahay
waxaan ugu jecelahay aniga hobbigayga ah in aniga fikirka iyo hamiga igu jira aan ka mira dhaliyo taasi waa hami sax waxyaabo hobby kubadda qoraalka akhrinta dabaasha orodka taa haddaan ka jawaabo waxa weeyaan akhrinta qaybta akhrinta waan isku fiicanahay akhrinta hadda waxaa bedelay waxyaabahan technology-ga ah sideed isku tihiin technology-ga cusub asxaabta kula xiriirtid taageerayaashaada kula xiriirtid aaladeed ugu isticmaal badan tahay waxaan ugu isticmaal badnahay Snapchat-ka iyo Instagram-ka hobby aad isleedahay weligaa deyn maysid ma akhrisku ama mise kuwa kale jira akhrisku noqon doonaa weliba aan akhristo buugaagta ka sheekeeya horumarinta nafta okay qoraaga ama lecture-raka aad ugu jeceshahay dadkan ka sheekeeya horumarinta nafta mar walba moraalkaaga dhisaya ka mid ah xagga Soomaaliga markaan u leexdo Maxamed Cumar baa ka mid ah Maxamed Cumar waan salaamena ciid wanaagsan ayaan leenahay waa aad baan anna u jeclahay mid kale aan u laabano haddaad kansho u heshid wax kale ood qabatid aan ka ahayn soo saaridda heeso raadinta erayo ama miro laxan la raadintii all waxaas oo dhan waa shaqadii fanka waxa wax ku barbar socdo xiliyadaad kansho haysid aad qabatid aan qabto markaad firaaqata markaan firaaqa aan ahay waxaan qabtaa inaan sport aan yar sameeyo ama asxaabta aan waqti la qaato haddaad kansho heli lahayd shaqadan shaqo kale ma ku darsan lahayd haddaan kansho heli lahaa ma tan aan ka fadhiisto mise tu kale haddaad tan midaad barbarboodi lahayd weriyanimo okay why wariye fan waa isku yara bah bay dadku yiraahdaan waa isku bah laakiin wariyuhu marka aan eego fan iyo wariye markaas garab dhigo qaybta wariyaha ayaan qaadan lahaa sababta aan ku doortayna wariyuhu waxyaabo badan yuu fanaan ku dheeriyaa wariye iyo fanaan iyo waxa la yiraahdaa waxa isku bah ah saxaafaduna waa wariyihii una iyaduna abwaanado kala ay wax qorqora oo ay ku suuxiyeen iska qaybta fanka una iyaduna waya adiga hadda waxbaad akhrisaa saad sheegtay hal abuur ma leedahay curinta may wax curina ma lihi waa codka una ma sha Allah kaagasan leeli kari waya codka markii ugu horeysay suldaano kolba meel bay ka bilaabataa ilaa xilli bay kugu jirtay in aad kartidan leedahay inaad dad hor istaagtid oo haysto maraan aan xilligii aan xagga joogay goday bay ahayd waxaan ahaa ardada iskoolka ka haysta xilliga iskoolka aan dhiganayay ayay ahayd sidee noo sawir maalintaas ma waxa weeye arday kale ku tilmaamay ma macallinka kulli idin wada tijaabiyey ma adiga inta hore isku soo tijaabisay meesha ka dhex muuqday may waxaan sameey jiray marka galaas iyo galaas loo tartamayo oo kale markii maadooyinka kale lagu tartamayo haddana qaybta muusiga markii lagu tartamayo dad khaas u ahaa baa jiray dadkaasaan ka mid ahaa markii hees la yiraahdo anigu ka qayb qaadan jiray qaybtaas wayahay dhanka muusikada weli ma isku dayday barashada may dhanka muusikada weli isku midayn barashadeeda wayahay aan u soo laabano imisa daqiiqay kugu qaadataa meersida heesta inaad ku qabatid ood ku qaadid way kala duwan tahay qaabka xafidaadaada ay ku xidhan tahay waxaa laga yaabaa hees aad maanta tuntay inaad isla caawa aad duubto ama waxaa laga yaabaa hees aad maanta tuntay inaad bil kadib ama dhowr iyo 10 cisho kadib aad duubto wayahay 1 ilaa 10 fahankaaga halkeed ku qiyaas lahayd fahankayga 8 way sareysaa fahanka aad buu sareeyaa adaa laakiin isiri saaxiibada maxay ku dhahaan wali saaxiibada jawaab baan ka sugaya
waayahay taageerayaal badan ayaad leedahay waxaad ka mid ahayd fanaaniintii sanadahan dambe aadka usoo baxay ma islahayd heerka maanta aad ka gaartay fanka Soomaaliyeed muddo intan la eg baad ku gaaraysaa hamiga ma kugu jiray wallahi Ismaaciilow waa su'aal qurux badan oo jawaab u baahan anigu ma aaminsani weli inaan fanaan weyn aan ahay weli arday inaan ahay baan aaminsanahay laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa halkan aan taaganahay maanta meel ka sii sarreysa waayahay su'aalihii way idin soo socdaan asxaabtaada way ku weydiin doonaa mise waan boobay waan dhex gelin doonaa waayahay dhinaca guulaha aad ka gaartay achievementigii 2019 aad qaadatay ee ahayd in lagu abaalmariyay fanaanka Soomaaliyeed inta leeg bad dhacdadaasi munaasabadaasi ka sii warhaysay makadis bay kugu ahayd tartanka umidaad ka qayb gashay mise mid waxa weeye qabanqaabiyaashii ay sameeyeen oo natiijada uu lagu wadaago tartanka wuxuu socday muddo 2 bilood iyo badh baan jeclahay wuxuu ahaa codayn buu ahaa online lagu codaynayay aniga kaliya ma ahayn waxa ku jiray fanaaniin aad u fara badan bay ahayd tartankuna ma ahayn wax la iska soo qaban qaabiyay ee wax cod shacab ku imid ayuu ahaa hadalka waan badinay waa isleedahay Soomaa mayna badinin haddii dadka na daawanaya iyo asxaabta nagala soo qayb gashayba aan dhihi lahayn horta inta nala joogto madaxa weeye caawa garbaha inta sare fadhiga inta u baa lagu ciyaarayaa qofka ciyaar bay ahaan jirtay Soomaa kulka ciyaar bay maraysaa COVID-19 baa keenay saasaad ku raali ahaanaysaan hal heesa oo cusub ayaan wagagac ka siinayna heestaasi de adigu ma gali cid samaystay waxa weeye isku keentay abwaankii la xamiistihii ya waxa weeye cid aad oga mahadnaqayso qisada heesta xambaarsan tahay haddii qiso gaar ah leedahay wadata weeye iyo codkaaga ayaan rajeynayaa inaan maqlo waad mahadsan tahay laba hees baan barnaamijka ugu talagalay insha Allah laba kaliya ما أدري أنا صوت ديار سديد بقول سؤالات جمال لبه هس أنا قلت لك البرنامج إن شاء الله هس كوبات وهس أنا قلت لك لي حاس كيجا والله هي عيد مبارك يعرض كيجا سيراريره والله عيد مبارك إيه الكيجي فهم الكيجي هو يدي يا بهي والله عيد مبارك هس كان وحسمي رياضة يلا حنكبه أبوان مسكحديسة يدأديسو إسلاكين ومسكحديسو كوينتاي وحسمي أبوان دب شعيل موسيقى وحسمي هينوك اللباتشو أنت قادستنا وأديك وهي هستاسي وحوي دمشق لوجو تلاقي أيانو مركو جوه الرئيسة وحوي كفران دونا هذا ربي إدمو واحد دقاقة أو عن كرسية هي هستاسي أيان كسوينا سودان نصبي لجرتاي سماينا باي عما إلى نعاين ولو شيدي قلب النور يا إني يدوتشي نصبي لجرتاي سماينا باي عما إلى نعاين ولو شيدي رجنا حياي نولي دساي نفداي هوراي نحاريس دارين او نارورا بدن حسك نقول تساي نسياي كبا
janaxiyaay nolol ii dhisay naftay huraay naxariis dareen oo naruura badan iska nugul tusaay nasiyay kabaa naxlibaajiyay nabariga jiray nacabiga hiray neecaaw kalgacal oo naafa wadan ka shanuujiyay nashadii taraay nasiibkaygiye naxlibaajiyay nabariga jiray nacabiga hiray neecaaw kalgacal oo naafa wadan ka shanuujiyay nashadii taraay nasiibkaygiye deeqdayo nalkay baxay nabad soo bixiyo naqayday kal nadiifiyay nus iga mida nafi deeqdayo nalkay baxay nabad soo bixiyo naqayday kal nadiifiyay nus iga mida نوتساي نسقنتي دني نغشها جعيل كل بنوع قرحون كن نظامي نسري كاملا نذري لقلا يحلي نوتساي نسقنتي دني نغشها جعيل كل بنوع قرحون كن نظامي نسري كاملا naxlibaajiyay nabariga jiray nacabiga hiray neecaaw kalgacal oo naafa wadan ka shanuujiyay nashadii taraay nasiibkaygiye naxlibaajiyay nabariga jiray nacabiga hiray neecaaw kalgacal oo naafa wadan ka shanuujiyay nashadii taraay nasiibkaygiye nashadii taraay nasiibkaygiye nasiibkaygiye واو مر لباد iyo mar saddexaad mar iyo laba ka badan buu mahadsan yahay hees qaali ah oo dhinac walba ka dhameystiran mid qaali ah alaylaha waxa weeye hees ba halka ka dhacday nasiib bay u yeelatay nasiibkaygii buu yiri waa Suldaan Seraar oo afka ula kala baxay marwada ku qaaliga ah waxa weeye Seraar hooyadii aad baan u salaameynaa ciid wanaagsan ayaan leenahay waxaan jeclaan lahaa asxaabtayda qaaliga ah taageerayaashaadii inaan markan idin yara kala baxo anigana aan isku yara dambayno waa Suldaan waa hobalkiini waad la kaftami kartaan waxa weeye in badan waxa weeye dhalinyaro halkan ka muuqata waxa laga yaabaa qisooyin inay ka hayaan heesihiisii fankiisii adinkan idin daayay hala feenfeento adinkan idinku soo wareejinaya haye Suldaan Seraar abti aad baan ku salaamayaa ciid mubaarak aniga waxaan rabaa su'aashiinan ku weydiiyo heesahaaga kamida ayaa la dhahaa ama social media ama YouTube-ka dhexmarta inaad Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee deegaanka aad u qaaday hees tira magaalada iftiin male su'aasha bal naga jaahiltir inay hees adiga kugu saabsan iyo inay tahay siday dadweynuhu filayaan inaad Cabdi u qaaday
thank you heestaasi ma hees siyaasadaysan bay ahayd mise hees waxa weeye aadan ka warqabin hadday xataa siyaasadaysnayn oo aadba way waa sax ay abti ciid mubaarag baan ku leeyahay waa su'aal qurux badan oo jawaab u baahan kaliya ma qabtid fikirkaas dad badan baa qaba fankaygu horta wax siyaasadda kuma salaysano anigu waxaan ahay fanaan ummadiisa fanaan u ah siyaasadda kuma jirin haddaan jawaabta aan u noqdo heeska magaalada iftiin ma leh SRTV-na hore aan ooga sheegay baan jeclahay waxaa sameeyey abwaan sakariye kobciye erayadii laxankaba qisada isagu waxay ahayd qiso isaga ka turjumaysa markii horena waxay ahayd heesku muqdisho iftiin ma leh aniga magaalada u bedelay maadaama hal magaalo koobaysay markii hore ilaa waad ka maqantahay muqdisho iftiin ma leh bay ahayd aniga u bedelay magaalada iftiin ma leh marka wax siyaasada heeska kuma jirto wali hees siyaasadda ma qaaday may wali hees siyaasada ma qaadin inaad qaado ma ku jirtaa iguma jirto inaan qaado waayahay haye su'aalahaas oo kale iyo kuwa kale anigu waxaan ku weydiinayaa su'aasheedu waxay tahay wali qof ka mid ah dadka maxaan ku idhahdaa dee fankaaga ku xidhan ama social media intuu wax kaaga sheegay ama caadiyan si khaldan intuu wax kaaga sheegay ma ka ficil celiso si xanaaqa jawaab ma u siisay waa mahadsan tahay ciid mubaarag way jiraan dad badan oo social mediaha si khaldan ama dadka magaca leh ama fanaaniinta si khaldan wax uga sheega laakiin qofku waxaa ka muhiimsan inuu naftiisa aaminsan yahay wuxuu asigu yahay qof kale wuxuu kugu sheegay waxba kaa waxayn mayso way jiraan dad badan oo waxaanan ahayn su'aasha Axmed baa ii daba taalo wixii kugala yaabka badnaa ee laga sheego ama ay ka sheego qof ama qof kale oo YouTube isticmaalaya ama qof kale oo social media isticmaalaya ee kuula fiican badnaa u raaci waa sax taasna waan raacin tamuxsin haddii aan ku socdo way jiraan dad badan oo si khaldan wax nooga sheega aniga keligay ma aha waxaan la qabaday fanaaniinta Soomaaliyeed oo si khaldan wax u sheega laakiin wali qof aniga intuu wax iga sheegay aan ogahay qofka ciwaankiisa saxda ama magaciisa ama meesha uu joogo aan ogahay anigu og wax falcelina kama sameeyo wax xanaaqana kama muujiyo way naftaydan aadan baa tahay waad dhibsanaysaa ma dhibsasho way jirtaa laakiin waxaan ogahay wax aan anigu naftayda ahay wax walba propaganda laga sameeyana de meel duleela ka galmayso taasaan uga baxay tan kale ee hadaan u noqdo walaalkay Ismaaciil wixii igu la yaab badnaa ee propagandada ugu yaab badnaa la iga sameeyay waxay ahayd maalmahan ay socotayba Suldaan inuu macdareen baa isguursaday ma hadda oo arinta waa hore muddo ma hadda socotaa imika socoto waliba Finland waliba joogaa bay dhahay Suldaan waana anaga caawi jigjiga barnaamijka ka galaya marka waliba waxay dhaheen أول هرا مركي تجيجو تشوق جرتي بدهن حرير بكده لكن يمكن مركو فينلاند تجي أي أزجور سدين نمعوا قبر ولا شيء وفنانات شرف السمعات بانو هيا دتك قار مو صديقي ولي ما عرفت أنت وحهم دتك قار ولا جاي بس خلديني وفهمان نمعوا قبر ولا شيء وفنانات دي حرمية شرف بانو هيا وحنا وحكي تشري ما تشرو سلطان سيرار وان كسلامي walaal waxaan ku leeyahay ciid mubaarak anigu waan ku taageeraa haana waan ku hayaa magacaadiyadana waan rabaa inaan ku bixiyo inaad iga gudoontana waan rabaa suldaanka geeska lagu yiri laakiin suldaan geesmatiido Afrika kuma koobnid caalamka dhan baa ku yaqaana macal dagolayaasha ku fahma thank you walaal aad iyo aad waxaan ku bixin lahaa walaal qaali suldaanka caalamka thank you walaal waan ka gudbinay caalamka suldaanka koonkan ka dhigana suldaanka koonka waayo dagolayaasha iyo nooc kasta way fahmaan hindiga iyo kulli isku wada daro waa lagu wada fahmaa anigu su'aal ma sii qabo weyn waxaan ku weydiin lahaa maxaad ka cabsataa adiga suldaan ahaan waxa ugu daran ku cabsi geliya waxa ugu daran ee cabsi geliya ciid maarag baan ku leeyahay waa mahadsantahay walaashay Allah ku sharfo magacaana waan ka gudoomay waana loo wada dhan yahay haddii aan su'aasha ka jawaabo waxa ugu daran ee ka cabsado
ومجدجة mugdiga ها مجدجة ها habeenkii leer ma ku seexataa هبينك الليلك ما يكون مسح دوان دنسدا marka لكن تلفك استينكي سندرتا su-aal kale ii daba taala haddii aan idhaahdo suldaan seeraar waa nin ballaadhan oo sumcad iyo sharaf kula deegaanka iyo meel caalamka meel kastoo la joogo haddii aan ishawloon idhaahdo suldaan waan casuumaya cuntooyinka noocaad jeceshahay in laguu sameeyo cunto waad mahadsantahay casuumadana waan kaa sugayaa casuumadaada cumar laga sugaya diyaar sumcad iyo sharaf bay tahay نورته عنتوي كساو مسي كلا جعلي وحي اللي يسوي رجورته وان لاعة وحول بول عنا جعلي لكن قيبته مع معانك يا مرت أدو جعلي تكله هدي رقم كعنتوي يمكن صحدا هذه يعني كم غنانين ونصوص صعدة شورة دي قال لي ذا كوبا ديا يعني قيلك سيونك سولا الأدبان كو سلام يا مر لبعض وحان أدي أدو سلام يا أنا كنت فايدي سنة دمشق يا أمون يقول كان يدو وحي سراري له وحان لي فرحد يعرف ما يقول يده معان صاحب سلطان مركو روحان كله عيد ونكسن su-aashaan ku weydiinaya anigu waxa weeyaan tusaale ahaan markuu meel la tegayo tusaale waxaa dhacdo in gaari kaa xumaado adoo safar markaad galaysid socodkii kugu dheeraa intaad gashay intee saacad ama intee maalin ayaad lugaysay socod lug marka la yiraahdo luga socod lug marka la yiraahdo intaad gudi ka baxday oo aad dhanaan u lugaysay ma jirtaa may waayahay socod luga waxaan lugeeyay hal saac markii igu badnayd wadn ku mahadsantahay ciid mubaarak baan ku leeyahay hal saac kaliya hal saac waa ninkan waa yara magaalo waayahay may weli magaalo mi waa labada dhanba waanahay baadiyihii iyo magaaladii iyo dadkan dadegayna waa magaalooyinkan unba magaalo la dhahayo meelahan waa oo meelaha waayahay suldaan dad badan baa waxay dhahaan wuu kibir badan yahay taa meela qabtaan dad badan baa waxay dhahaan wuu kibir badan yahay markuu heesayo sankuu saa yiraahdaa dadka noocaas maxaad ugu jeedaysaa suldaano waa su'aal qurux badan ma qurux badan horta dad maya hay tii hore aan ka soo noqdo hay ma qurux badna waa taas way jiraan dad fikirkaa qaba dad badanna saasay ugu dhahaan laakiin Soomaalideena waxaa jirta dad yowga kale kuma arag Soomaalideena waxaa jirta in la yiraahdo imika anigoo halka fadhiya waniyo muxsin aqoon oo malihi mana aqaano laakiin muxsin oo TV ka arkay ama asagoo meel maray aan arkin aan dhaho ninka jinkayga nacab ma jinka marka waa jinka waxa marka jinkan horta waxaan dadka nacsiiya jinku waa bakii shaydaan ahaaye way jirtaa anigu waan iska furfurnahay dad badan ba waxay ku dhahaaneen markii aad dadka soo horisaagtay u sheekayso iyo marka TV-ga laga arkay inaad careysan tahay ama lagu dilaad moodaa ama waad kibir badan tahay oo nin isla qab weyn oo isla kibir weyn baata maxaan ku kibraa hanti aan ku kibrana ma haysto fanna Soomaali baan ka ahay oo kuma bataajirin ba fankii waa salaantaas marka anigu ummadaydaasaan ka mid ahay waxaan wax ku soo gaaray fanka halkayga ku soo gaaranay waa dadkayga aan la qoslayo aan waqtiga la qaadanayo aan ku dhaxnoolahay iskama weynaysiiyo waayo dad shakhsiyadda dadyowga karakterada ay leeyihiin dabeecadaha ay leeyihiin dabeecadaha nacabtahay maxaa ka mid ah dabeecadda nacabah waxay tahay fanka good haye laguma agfaani karo haye fanka waa nacabah haye kibirkana waa nacabah marka dadkii kulaha uu kibir badan yahay oo markuu stage ka saaran yahay sanku taagaa wadniga ma kibir badni wad leedahay miskiin yar baan iska ah waa yahay waan sii wadanaynaa fanka heesahaaga aan ahayn kuwii hore fannaankee jeclaan lahayd inaad noqoto ama daawatid ama aad dhegaysatid heesahayga hore markii la yiraahdo fanaaniintii hore sax fanaan aad uga dambeeyo Lejan Xasan Aadan Samatar fanaanad dhanka dumarka Khadra Daahir
codkooda iyo habka masraxiyadooda ma jecesha labadaba waan jeclahay safar waxaan ugu maqalaa inaad safar Mareykanka aad tagi lahayd hadduusan ama aad jeceshahay inaad tagtid maya wuu jira heshiisyo aan qolo aan wada saxiixanay oo bishii lixaad inaan tago Mareykanka ahayd laakiin oo muuqato way su'aalahan sii wadaynaa qayban kuugu talagalnay waxaa jira dadka dhalinyarada halkaas soo fadhiya taageerayaasha ah waxaan eegaynaa sida ay tahay fahankaaga oo wali ma class maad qaadatay ma daawatay qoladan dawlayaasha ee gacmaha xukuumadda may kuma waan arkay laakiin kuma badnimo daawado badana okay wax hinta aw badan kama haysatid marka waxaan eegaynaa bal sidii dadkaas iyo adiga adinkoona cod ahayn aad isku fahmi lahaydeen sax qayb dambe oo soo socoto weeye waanu gaari doonaa su'aalahan ku sii soconno heesahaaga u soo galno adiga ahaan heesteed ugu jecesha aniga heesahayga way farbadan yihiin laakiin heeska aan ugu jeclaa markii aan soo qabto tiimka aan qaaday ugu dambeysay heesta ugu badan ee laga codsado inaad qaadid heeska ugu badan waa ahaatay ee la iga codsado inaan qaado adiga heestaad ugu dhageysid badan tahay haddaad heesahaaga dhageysatid kal iyo laab heeska kal iyo laab amuun dumaashaday heesta ay ugu jeceshahay heesahaaga hore tii hadda caawa marka laga reebo tan caawa marka laga reebo xamar bila heesahaaga heestii ugu saameynta badnayd saameynta ma dhanka daawashada mise saameyn waxaan ka wadnaa lagu wada hadaaqo aad loo wada qaadqaado ahaatay waynu ahaatay ta loogu daawasho badan yahay dhinaca social media kal iyo laab baa ugu daawasho badan imisa daawatay 7 milyan iyo 600 oo qof waayahay sideed isku tihiin aaladan teknolojiyadda cusub ee social media dadka intee xageebaad inta badan aaladeed kala xiriidhaa dadka inta badan waxaan kala xiriiraa Instagram-ka iyo Snapchat-ka oo WhatsApp-kana way soo raacaa oo dadka caadiga ah waayahay fanaaniinta Soomaaliyeed habka shaqadooda nidaamka wuxuu qabtaan habka dakhligu uu soo galo dad badan oo dhalisan baa jiro aniga kamid ah maxaa jeclaan lahayd in hab shaqoodkooda saacadaha shaqada ay shaqeeyaan nidaamka waxa weeye ay wax uga soo galaan maxaad leedahay way ficlaan lahayd in laga bedelo marka la yiraahdo fan Soomaali Ismaaciilow horta wax laga faa'iido magac ahayn ma jirto fanka Soomaalidu mooyida wax sababay ma dawlad la'aan baa haysata ma dhaqaale la'aan baa jirta ma dadkeena fahansanayn mooy wadamadeena jaarka ah markaan eego fanaan hees qaaday oo heeskiisa ay daawadeen 200 oo qof oo fanaan heeskiisa ay daawadeen 11 milyan oo qof ka lacag badan baa jira sababta waa copyright waa garab istaag la garab istaagay ama dawlad baa garab istaagtay ama hantiilayaal baa garab istaagay ama ganacsataa garab istaagtay innaga Soomaali markaan nahay de waxa ma fahansanin maanta nin hantiilayaasheena markii la yiraahdo album baan soo saaraya copyright baan u baahanahay markaad tiraahdo te wax kale oo haystaaba saacadihiina shaqada oo kale studio idin duuba oo waxan idin suuq geeya ma jiraan filaya ma jiro wax studio oo jira ma jiro professional wax duuba professional ma jiro saacadaha shaqeysaan studio international markii la yiraahdo waxaad sabab ka sokeeyay ma jiro deegaanka wax studio oo leeyahay ma jiro saacadaha dambe bajaajta markii istaagtaa jigjiga wax la duubi jiro ma organka waa la xambaartaa mixerkana waa la xambaartaa wal boqolka kugu dhawaad ku duubi studio sound proof wax Soomaali oo copyright ku jira ma jiro waxaan dan deegaankeena nahay xaq waxaan u leenahay fanaanka Itoobiya jooga fanaanka Itoobiyaanka ilaa deegaanka ka midna Itoobiyan ka midnahay wuxuu helay inaan helo wax deegaankeena oo copyright leh ma jiro waxaad aragtay marka la yiraahdo munaasabadaha qoomiyadaha la isugu imanaya afkii Soomaaliga oo qofan Soomaali ahayn uu jibinayo leeyahay meel baan Soomaaliga ka soo gelinaya afafka kale markuu nin walba qoomiyadiisa u taagan yahay
maamulku weli arrintaas way aan ka gudubna taa heesaha waan aragnay wax dhaanta ama kaa soo socota ilaa hadda kaama aragnay may dhanka dhaantada iskuma fiicin kuma soo haysa xataa may qaadisteeda ima haysa laakiin ciyaarteeda aan ku fiicanahay waa jabisaa waan jabiyaa caawa hadduusan koofi dhahan lahayn hal xabo aan ku tuuran lahayn hal xabo heesteed dhaantadeed noo soo qaban lahayn dirgax alla dirgax bashiir waan salaamaynaa waa yahay waxaan u gelaynaa dhinacii aan u majaajilayno ninkan waxa weeye fahankiisa heesaha markuu qabanayo lambar 8 weeye oo markay dhawaqa la socdaan oo la maqlayo hadduu ka soo horbaxo qof waxa weeye aan cod soo gaarsiin karaynin oo wax ka dalbado siduu u fahmi lahaa waayahay volunteers baan u baahannahay waxaan idin tusaynaa sawir asaga uusan arkaynin sawirkaas ayaa laga rabaa inuu noo sheego ma isfahanay suldaan si fiican waayahay sawirka halka aan kuu tusi doono ayaad la wadaagaysaa adigoo u miidaaraya afkaaga wax jabaq ah kama soo bixi karto dhawaq yaray iska daa miidaar gacmahaaga isticmaal indhaha isticmaal dhagaha ma ka shaqaysiin kartaan ha isticmaala laakiin afka una isticmaalina asagana laba chance saddex baan kaaga dhignaa suldaan saddex baan uga dhignaa hadduu dhaho glue light iyo electric bas waa ka gubatay let's go haye u dhiiba ninkaan bilaabaya waad istaagi haye waan isla haysanaa sooma waad aragtay sawirka waad haysaa waad tilmaami kartaa waa ku kaa sijaayada lagu tukado ma hubtaa ugu celi sijaayada lagu tukado waa yahay sijaayada lagu tukado waryaha ninkan qolyaha ka dambeeya telefishinada ma aragtay wararka gacmaha ku tilmaamuu noqon karaa haye qofka xiga muxsin bilow sawirka waad haysataa maskaxdaada wuu ku jiraa waan kula aragnay qaado ma gartay waa yahay wuu gartay waraan ninka ma sawirada ma qish baad siiseen waa yahay haye ilmo yar fruit baa socda waa maxay haye wuu saxay soo maa war ninka wuu naga dhurtay traffic saan lagu kala harmayo meequu garanaya hadda 4 buu gartay volunteer kalaan u baahannahay inuu garto haye sawirku waad aragtay waad la haysataa okay let's do it
فرد فرس ويا هي تانا وقرتي أجا ورياها ويا هي وحبق غش ما ذي وحما عند قضاء يسوي ما ذي ما يمكن فردي ويا هي أنت عم كوس ودافنو waxaan soo galeynaa dhinacii su'aalaha gaagabnaa Suldaano waa su'aalo gaagaban jawaabo gaagaban uma ka rabnaa 10 sano kadib noloshaada xagee rabtaa inay gaadho heer noocee ah Suldaan noocee inaad noqoto ayaa rabtaa 10 sano kadib hadduu ilaahay nagu simo waxaan rabaa Suldaankan maanta ahay mid ka sii weyn inaan gaadho insha Allah haddaad fanka ka fadhiisatid maxaad leedahay waad noqon lahayd oo kale haddaan fanka aan ka fadhiisto waxa koobaad in noqon lahaa inaan ganacsada noqdo luuqadeed jeclaan lahayd inaad baratid luuqadaha adduunka Chinese maxaad ku dooratay waxaan ku doortay waxaa ku hadla adduunka haafkii waayahay dhinaca siyaasadda haddaan u soo galno madaxweynehee role model ku ah oo jeceshahay inaad haddii aadba madaxweyneed dalalka adduunka madaxweyneed ugu jeceshahay Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga haddaad mucaarad noqon lahayd mucaaradkeed noqon lahayd mucaaradka Somaliland sababta aan ku doortay waxay tahay waxay ku dhaleelaan dawladda ama cidda haysa xukunka waxa saxda ay jira markay arrin sax ah timaado arrin sax markay timaadana danta dalka waa laga wada simeeyaa oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada taagan yihiin waayahay mucaaradka Somaliland dhinaca haddaan u soo laabano jilista sayd isku tihiin dhanka jilista saa isuguma sii fiicnin waayahay dad baa fani ku arka caawa ciida maxaad nooga sheekayn lahayd hal sheeko laba sheeko oo fani ah oo is leedahay way naga quslin karaan hal sheeko oo yaan idinka sheekayn xawayaan baa meel isugu yimid fara badan oo marwadi ku jiro libaax dameer xawayaan oo dhan baa meel isugu yimid markii libaax baa wuxuu ka sheekeeyey sheeko aad u qosol badan oo ummadii oo xawayaankii oo dhan ay ku wada qosleen tanaawa soo dido kale lugtay ku wada rafteen ninkii dameer ahaa uu iska taagan yahay ma qoslayo isagu dameerkii ma qoslayo waxaan lagu qoslayo ma ku qoslayo kuma qoslayo isagu iska taagan yahay laakiin xawayaankii oo kale oo dhan lugtay ku wada rafteen habeenkii meesha lagu kala tagay habeenkii labadu la isu yimid shabeel baa sheeka amba iyo tahayno maraxu ka sheekeeyay dadkii xawayaankii kale nin muu qoslin way iska wada aamuseen wax fanaya ma ahayn dameerkii baa lugta ku raftay waa la weydiiyey war dameer dee wax sheekadan sheeko lagu qoslo ma ahayn maxaad ku qososhay tii habeen horaan soo xasuusta kulaa waayahay tii habeen horaan soo xasuustay siyaabo kale loo kala farsiran karaa waan ku daynaa waayahay barnaamijkii gabagabadiisa ayaan soo gaarnay waa barnaamijkii ciida qabanqaabayaasha barnaamijka ayaa waxay dhaheen dhinacii isku dayga fahankiisa maadaama uu noo sheegay isku daygii dhanka waxa weeye dhagooleyntii ama midaarkiina aad buu wax u keenay intee in eg baad jimicsataa jimicsiga say isku tihiin jimicsiga saa isuguma sii fiicnin laakiin noocee ka heshaa orodka fayda mise rucleynta fayda iskuma fiicnin waayahay dhinaca farsamada gacanta say isku tihiin farsamada gacanta saa iskuma fiicnin cuntooyinka ma karin taqaanaa may cuntooyinka fuulkan karin karaa fuul waayahay cunno aad weli karisay qof ma ku casuntay cunno aan kariyey anoo Nairobi jooga fuul buu ahaa suuguun bay ahayd laakiin furan baa lagu cunayay yaa dhadhamiyey xaaskayga amuun baa dhadhamisay waaya maasha allah
dhinaca waxaan soo gelaynaa bay dhaheen waxa way raggan asxaabta ah ee Universal iyo warbaahinta waxay dhaheen bal aan challenge garayno intee in la eg buu gacan fudud yahay aniga ahaan markaan kula hadlayo Ismaaciil ahaan iskuma fiicnin farsamada gacanta ha ka yaabin صح marka kulama tartamayo waxay dhaheen challenge yar baan u soo wadnaa wuu arkaya challenge-gaas waxa weeye okay waa kana waxay dhaheen shamac baanu keenay xabad taraqa imisa shamacu suldaankii ku shiri karaa suldaan اوكي صح taraqaas lagu dhiibi hal mar baad daaraysaa هل مره بريدية ترقة hal mar baad taraqa ridaysaa shamacaantan waan kuu tirinaynaa intaad daartid واي u qabo ما توصيانه هسكع عفوفين هدو مركز دم بسوي كان حبتها مركز أرجع وأجوبته اوكي وارسني قاعد فضيت والله صوبحي aad buu mahadsan yahay suldaan Seraar Guhaad oo ah hobalka ciidan ciidul fidriga ee 1441 kan ugula ciidaya magaalada Jigjiga hadaan nahay bahda Universal TV iyo waliba taageerayaashiisa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waa Turkey style carwada dharka iyo uduga oo ay leedahay gabadh ugaasadayadii hooda ugaas mahad oo ayada gacan weyn ka qaadatay qaban qaabada iyo isku dubaridka barnaamijkan Turkey style ayaa gacan ka geysatay qaban qaabadiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waa dhalinyarta dhinaca waxa weeye ganacsiga dhawaan ku biiray oo waxa weeye waxay ku takhasustay dharka ragga noocyadiisa kala duwan waayahay waa gabagabadii baan soo gaarnay annagoo aad ugu mahadnaqayno dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo waliba howlwadeennada barnaamijkan isku soo dubariday suldaan dadka intaysan aad noogu caajisin heestii labaad baan isleeyahay aan miiska u soo saarno waa hees cusub aan ku sii dayno kadibna bal aan isla xal wareysano barnaamijka saa ku soo xirno waa heeska labaad ee barnaamijka ugu talagalay waxaa ereyada sameeyey abaan xaraf laxanka dab jacayl baa sameeyey muusiga macalinka macallimiinta axmed weli furle yaa sameeyey waayahay heestaasi ayaanu ku yara wada nasan doonaa hadduu eebeedo mugdigii iftiin ka dhigay itaal murugtii oraah ku tiray ilwada quruxdaan kuwan baxayay abuur qalbigiyo indhaha deeqday ilays mugdigii iftiin ka dhigay itaal murugtii oraah ku tiray ilwada quruxdaan kuwan baxayay abuur qalbigiyo indhaha deeqday garashadaad miga u sito adaa amranaya aslubu dhasho adaa garashadaad miga u sito adaan aniguna ifku jecelo ayaha noloshaydu waa adige ogow naftu way ku aamintay adaa amranaya aslubu dhasho adaa garashadaad miga u sito adaa amranaya aslubu dhasho adaa garashadaad miga u sito adaan aniguna ifku jecelo ayaha noloshaydu waa adige ogow naftu way ku aamintay
أحديقو جعيلكاتك أبابي عاشق انتا ذهبي انتي رودنا هذا استاهل قتي أهو فرحدان كعيدي لها مي أحديقو جعيلكاتك أبابي عاشق انتا ذهبي انتي رودنا هذا استاهل قتي أهو فرحدان كعيدي لها بان قلبي وبحي كدداي أذيه قرنو أدع نقطاي أقوهم بدنتان واي هداي حمر لي أستوعني بان قلبي وبحي كدداي أذيه قرنو أدع نقطاي أقوهم بدنتان واي هداي حمر لي أستوعني هذا أمرنا إيمان سوان له أكتاذا ينكور سموه هذا أمرنا إيمان سوان له أكتاذا ينكور سموه انتي يذيقان أتكاقهلو هذا مرتي إيا أمان كسبدي بيانا بذكيكا ولي كرا هذا أمرنا إيمان سوان له أكتاذا ينكور سموه هذا أمرنا إيمان سوان له أكتاذا ينكور سموه انتي يذيقان أتكاقهلو هذا مرتي إيا أمان كسبدي ميانا بذكيكا ولي كرا مي أحديقو جعيلكاتك أبابي عاشق انتا ذهبي انتي رودنا هذا استاهل قتي أهو فرحدان كعيدي لها مي أحديقو جعيلكاتك أبابي عاشق انتا ذهبي انتي رودنا هذا استاهل قتي أهو فرحدان كعيدي لها مي أحديقو جعيلكاتك أبابي عاشق انتا ذهبي انتي رودنا هذا استاهل قتي أهو فرحدان كعيدي لها بانو سلام يا سلطان iyo buurgaaba aad baan u salaamayaa ciid mubaarak anigoo halkan ka faa'iideysanaya munaasabadna qurux badan leh ummadda islaamka dhamaantood waxa la ciid mubaarak familigana waxa la ciid mubaarak dhamaantiin waxa la ciid mubaarak waxaan doonayaa inaan weydiiyo suldaan su'aal ah imika suldaan ahaan hadii lagu yiraahdo suldaanow fanaan baa tahay fanaan weyn oo suldaana baa tahay oo IB marka hadii lagu yiraahdo macna nooceed u sameynaysan ummadda maxaa boos nooceed ummadda ugu jirtaan maxaa ugu jawaabi leeyahay وسؤال بدن كدتك يسويديان فنانينتو ومدة محي ومتشاه محي ومتشاه أي أوتهاي مدة سلطان أهم فنان أهم حدوقة حجيد وجتشرته حجيد وجتشرته ومدة هذا كل شيء هذا ما سنة عيد مبارك بان كله ولا الكي أدبا ما سنت هاي سواء شهدان سكوت ضيو مدة حنا وجتشرا مركي أنا نقول إسراهضو qaybta fankana waxaa hoos imanaya wacyigelintii bulshada garab istaagii bulshada dhibka hadalkii bulshada waxyaabo badan baa imanaya dadweynahan hanuun ma xasuustaa qoladii kale wacyigelinta qabiil iska dagaalanka oo ay ka mid tahay qolo madaynay qabiil ma iska tuuray waa qaali midnimadu waa qaali midnimadu qaranimo ma dhowrna waa arrin aad u taagan waa arrin aad u taagan oo bulshada mujtamaca Soomaalida aad u haysato waxaan jeclaan lahaa maaragtay kuwa noocaas oo kala in aad loogu celceliyo wala qolo madayna haye aad baad ma santahay si qurux badan ma jawaabta su'aashaas uga jawaabtay waxaan rabaa caawa hadii lagu yiraahdo barnaamijkan aad fadhidid dhalinyartan kooban maybe maadaama iska kooban yihiin oo coronavirus iyo xaalad degdeg ay jirto lagu oran lahaa bal qaybtan maxaad ku qancin lahayd barnaamijka caawa maxaad bulshadan aad ku qancin lahayd cod ahaan adoo in yaro kooban hees ahaan
ku qaadaya maxaad caawa bulshada inta yar ku hor fadhida u qaadi lahayd inagoon gaadhin intii baraha bulshada iyo tviyada weli cod yar oo okay waad mahadsan tahay mar walba waxaan u taaganahay siday dad badan ila qabaan fanaaniin badan inay ummadooda qanciyaan waan idinka mahadcelinayaa intiinan igala soo qayb gashay barnaamijkan oo asxaabtayda iigu dhow oo aad tihiin waan idinka mahadcelinayaa ciid baa ina haysa waa inoo ahaatay soo ma ahaato noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yagleelo marwada quray ahaato noo ahaatay inaga way inoo ahaatay ما شاء الله تبارك الله وياه هيه أيه نكن كادم بمركا يركا أوجي بسم الله عيد مبارك دمانتين أمد المسلمين تمل كستوي شوكتو خاصة سومالي سوبر ستار يعني وميسي جينا ويان we have to grow نجاهن سوماليهان يعني سوماليهان يا سوماليهان مركان دانو وين كوفانو we don't care about Ronaldo Messi لكن إسقى نوع ميسي waxaan rabaa weydiyo su'aal yar Suldaanow maxay heesaha uga macaan yihiin heesaha fanaaniinta kale maadaa soo xushaa bal noo sheeg sababtay u macaan yihiin heesahaagu sirta macaanka heesahaaga saasay noqonaysaa waad mahadsan tahay ciid maar baan kulahay walaalkay laga yaabaa inaad keligaa fikirkaa qabto dad kalena ay kula qabin haddii aan anigu idhaahdo inaan heese macaanahay anigu isuma haysto laakiin toobiyada qaar anaa la imaada sida ahaatay oo kale anaa abwaanka ahaatay inta ahaatay baan u sheegan ku yiri inoo soo samee waxa macaanaya ma miraha ma ayadu horta waxa hees macaaneeya miro waa la qori karaa laakiin waa laxanka taada kale hal abwaan wax kama qaato waxaan abwaano badan ma wax ka qaadaa dad badan waxay soo diray way jiraan laakiin qofka wixiisa ay qancinin intaan meel dhigo waan qaadi ma dhaho waxaan dhahay eriyadan ima qancinin ama iguma socdaan marka wixii i qanciya ayaan qaataa markaasaan laxan fiican la daydayaa mahadsanid ciid mubaarak waayahay labadan nin dambe noo soo kooba aan yara dhuujino way gaadhayaa Sultan Seraar su'aashan weydiin lahaa waxa weeyaan kale Soomaalideena ay badanka fanaaniinteeni hore mooyaan baada ku jira ma yarkin fanaan luqad kale ku heesay Carabiga ama Ingiriisiga marka Sultan waxaan la oran lahaa luqad kale ku heesi lahayd waliba Carabiga hadii wax la amaanayo jacayl tahay Carabigu aad ugu fiican tahay uu ku heesi lahayd imaka safaro badan waad martay oo dalalka Yurub carabta ma noogu iman lahayd laakiin Kuwait Qatar Imaaraadka wadamo noogu iman lahayd baan kornaa marka ma san tahay ciid mubaarak mahadsanid walaalkay ciid mubaarak baan ku leeyahay waa sax luqada badan in lagu heeso waa muhiim oo mujtamacaaga iyo bulshadaada iyo taageerayaashaada ay badinaysaa horta Carabiga iskuma fiicnin okay dhanka Carabiga iskuma fiicnin laakiin de maadaama luqad Soomaali ah ku hadashid oo af Carabigu uusan ku dhibaynin hadii lagu dhibo la xifdiyo u malaynaayo inkastoo hadii lagu qoro aad akhrin karayso imika luqadda labaad ee Soomaali iyo soo raacda waxay noqon doontaa Ahmari oo ay diyaarsan tahay iminka insha Allah oo albun toddoba heesood aan laba heesood oo Ahmari ah kaga dari doono insha Allah waxa kale oo jirta heesan wada qaadnay Roberto isagana oo fanaan Zambian ah laakiin ku heesa luqadda Ingiriiska oo qaada heesiisa ugu caansan heeska Amarulla heesan wada qaadnay baa jira awdiyogu aan doobna fiiriyogii waa dhiman insha Allah Carabigana waan isku day doonaa Qatar iyo Kuwaitna insha Allah waa iman doonaa insha Allah waayahay Sawaaxilna uu ku dari doonaa haye bismillah
dhammaan marka hore waxaan salaamayaa asxaabta sharafta leh marka labaad waxaan salaamayaa suldaan iyo ismaaciil burgaabo inkastoo su'aalihii aan weydiin lahayn ismaaciilba naga dhameeyey suldaan waxaan weydiin lahaa xaaskaaga qiimaha leh waxaan caawa rabnaa inaad ammaanteeda kolley ammaan badan way leedahay inaad ammaanteeda hal meel ku soo koobto maxaad dhihi lahayd hal eray amuun mise laba ma u badina laba hal may hal eray oo koobaya ammaanta dumaashadeena amuun waa su'aal adag waa mahadsan tahay walaalkay ciid mubaarag baan ku leeyahay oo su'aalaadu qiimo badan haddii aan hal eray ku soo koobo waa afar dhaan afar dhaan ma fahanteen waa idil waaya way igu fillaatay weeye warniyahow ninkan yar jacayl baa hayuu yidhi ciid mubaarak baan leeyahay idil ahaantiinba ka soo qaybgalayaasha fannaankeenna suldaan seeraar iyo wariyaheenna ismaaciil buurgaabo ciid mubaarak baan leeyahay kurtigiin marka abti waxaan ku weydiin lahaa muxuu ahaayey heesahaagu aad bay u badan yihiin heese macaan baa ku jira laakiin heestii ugu muhiimsaneed ilaa hadda maadan qaadin heesta waan sugayaa intaad soo saaraysa insha allah waana hooye intaad heesta soo saaraysa heesii ugu muhiimsanaydna waad qaaday laakiin hooye heesta waan kaa sugayaa inaad soo saarto hees hooyaa kugu dhiman suldaan qarka qardhe waxa weeye waa thank you abti aad baa mahadsan tahay ciid mubaarag baan ku leeyahay insha allah sida ugu dhaqsaha badan maadaama ay tahay cabdiraxmaan aad baa mahadsan tahay maadaama ay tahay meesha kaliya nahuran ama ay tahay adduunkeennii hooyadu ay tahay adduunkeennii insha allah waan soo saarayaa hadduu rabbi idmo waan kaa sugaynaa guud ahaanba su-aashaasi cabdiraxmaan uu weydiiyey ayaan barnaamijkeennii kusoo khatimaynaa waa ciid iyo waxa weeye xaalad degdeg oo isa soo galay barnaamijka haddaanu halaynay haddaanu dheeraynayba ka raalli ahada daawadayaal intaas ayaanu barnaamij kusoo afmeeraynaa waa barnaamijkii ciidulfidriga aan ugu talagalnay ee markaasi uu martida inoogu ahaa fanaanka Soomaaliyeed Suldaan Seeraar Guhaad oo waqti la qaadanayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa inta nasiibka u heshay ay isugu yimaadeen hool ka mid ah madalada lagu kulmay ee magaalada Jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida barnaamijkan waxa isku soo dubariday bahda Universal TV iyo guud ahaan bahda saxaafadda ee deegaanka intaas ayaan ku soo afmeeri lahayn annagoo u mahadnaqayno sponsorkii ama qabanqaabiyihii barnaamijka ama taabageliyihii waa Turkey Style oo nagarab istaagtay intaan barnaamij kan la mid isaga imaan doono waa reer Jigjiga oo idin leh ciid mubaarak hadda laga lay jacayl u baahay